dagaalka Puntland iyo Somaliland oo sii xoogaystay xilli ay dhawaan Somaliland qabsatay degmadii ugu dambeysay ee gobolka Sool waxaana maanta warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka militariga Somaliland Nuux Taani oo ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray taliyaha ciidanka daraawishta Puntland ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxaana warbixintan idinkula wadaagayaa hadallada ka soo kala baxay taliyaasha ugu sareeya ciidanka Somaliland iyo Puntland haddii aan ku horeeyo hadalka uu dhawaan jeediyay jananka ugu sareeya ciidamada difaaca Puntland ayaa khamiistii la soo dhaafay shaaciyay in ay Somaliland maalgeliso kooxaha argagixisada ah taliyaha guud ee ciidamada difaaca Puntland sareeya gaas Abshir London ayaa sheegay in ay Somaliland hoy u tahay garabsiinta iyo kala gudbinta argagixisada Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay Somaliland dhaqaale ku maalgeliso argagixisada isla markaana ay cadayn u hayso waxa uu yiri Somaliland waxay ku caan baxday hoyga magangelinta argagixisada Somaliland ayaana argagixisada kala gudbisa dhaqaalana ku bixisa waxaana u haynaa cadaymo buuxa mana uusan soo bandhigin wax cadaymo ah taasi oo hadalkiisa dhaawac ku ah kana dhigaysa qof iska hadlay hadalkaas ayuuna ka jeediyay duleedka degmada Boocame ee gobolka Sool oo ay dhawaan qabsadeen ciidamada militariga Somaliland isaga oo la hadlayay ciidamo u dhashay deegaankaas oo Puntland ku soo biiray sidoo kale maanta ayaa waxa hadalkaas ka jawaabay taliyaha guud ee ciidamada Somaliland General Nuux Ismaaciil Taani isaga oo wax kama jiraan ku tilmaamay in ay Somaliland maalgeliso kooxaha argagixisada ah shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Hargeysa ayuu kaga jawaabay hadalkii taliyaha ciidamada daraawishta Puntland oo ku sheegay in ay Somaliland gacan siiso argagixisada taliyaha ciidamada Somaliland ayaa sidoo kale sheegay in liiskii ay u dambeeyay shakhsiyaadkii Mareykanku ku tilmaamay argagixisada ay dhamaantood ka soo jeedeen Puntland ayaa marar kala duwan Somaliland ku eedeysay inay xiriir iyo wada shaqayn la leedahay kooxaha argagixisada ah balse Somaliland ayaa mar walba beenisa arrintaas Puntlandna ma keento cadaymo buuxa taasi oo mar walba dooda Puntland ka dhigta mid aan jirin sidoo kale waa kan taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland sareeya guuto Nuux Ismaaciil Taani oo maanta la hadlayay warbaahinta ka taliyaha ee hadlayay maalin dhow baan la magacaabay qurbahana uu ka yimid wixii wadanka ka dhacayna waxba kama ogeyn ku hadlayaan hadallada xunxun ee kan hadal wax la nabadgelyo hadal xumi nabadgelyo uu ka fogeeyo colna wax kama taro waxaan ku leeyahay ninka ugu dambeeyay wuxuu yiraahdaa raawi ma dida hargolow haygu tumi durmaanada iyo daasadaha maran annagu kuwa si loo hadla ma yihin dib hadalkaaga dib ugu noqo Boocane noqotay وجوه وعيدا كي وعيدا قرن قدي الوحي اللي أنا فراك الله ما ينوى ديار بانونا وعيدا قرن والدجان كاسة عدي وررتها عيدا كقرن صو وررتي وانا دفاعنا ثم لا أرجع حسدا إيه مجن جلسة نقولنا يقارنا تاريخ خذوا عضون سماع سماح wararkii ugu dambeeyay ee soo saartay Mareykanku soo saaray sideedii qof uu sheegay sideed waa beeshin ahayd aagin ahayd nin Somaliland kuma jirin taas cadeynaysa waxaynu kala nahay